odayaasha iyo ehelada qaarkood ay dhinacayga taagan yihiin sidee wax u dhaceen waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay maqlaan siday wax u dhaceen sababtoo ah ma rabno inay dawladdu dadka been u sheegto saldhigga markii aan hor istaagnay waxaa noo hormaray madaxweyne Shariif oo garaacay saldhigga iyadoo annagu aan la soconno waa laga soo xiray waa la soo reexay wuxuu naga codsaday madaxweyne Shariif inaan bannaanka saldhigga shir jaraa'id ku qabanno si aanay dhibaato u dhacin waxaad sawirrada fiidiyowyada ka heli kartaan annagoo taagan oo shir jaraa'id u taagan oo hadalkii la bilaabay inay xabaddu dhacday oo xabadna la ku bilaabay oo ciidanuu macallimaadii hoggaaminayo oo saldhigga ku jira ay xabad nagu soo rideen sida walaalkay cabdiraxmaan abshakuur uu sheegay waxaan ku heshiinay inaan shirkeenna jaraa'id iska wadanno xabadduna ay joogsan doonto xabaddii ma joogsan ee hoos baana lakugu dhigay waa ka soo tagnay waxaan istaagnay barxadda Siinaay oon cidi joogin waxaan isku daynay halkaa inaan shir jaraa'id ku qabanno intii aan soo soconnay waa marka madaxweyne Shariif oo socda gaarigiisa xabad ay ku dhacayso kulligeenna xabadana la ku ridaaya annagoo gawaarida saaran oo u soo soconnaa inaan ku qabanno shir jaraa'id barxadda Siinaay yaa la soo xabadeeyey annaga yaa wiilashoodii la dilay ilaahay ha u naxariisto jannadii ha ka waraabiyo annaga wiilkii aniga gaariga ii saarnaa oo bannaanka joogay ayay gaari 7 ah intay soo rideen ayay isaga iyo wiilashii saarnay bannaanka saldhigga bannaanka barxadda hore ayay kula dhufteen 7 midna wuu dhintay allah u naxariistaa inta haddaan ognahay midna wuu dhaawacan yahay yaa looga daba yimid barxadda Siinaay annagaana kaga daba yimid yaa iyagoo gawaaridooda ku jira maanta la soo xabadeeyey annagaana la soo xabadeeyey oo meediyadu og tahay oo markhaati leedahay intaa markaan ka soo gudbo jidka markaan soo maraynay waxaa Siinaay loo soo diray ciidankii Soomaaliyeed ee loogu talagalay inay shabaab la dagaalamaan oo gurmad u ah inay na soo laayaan annaga waxaa nasiib darro ah marka inaanan maanta isku haystan doorasho aan galno aan dastuur ka heshiinno aan midnimada dalka ka shaqayno ayaan darro ah inaan isku haysanno